hablo quraacdu aad bay saaka u macaan tahay intaana qabowin kaalay cuna anigu weligayba waxaan jeclaa quraacda hooyo yaanan tina idinku iman kolkaan tayda soo dhameeyo ma tidhi saafi hooyo shaahanaan kuu shubay hooyo iska daa annagaa shubanahayne quraaco adigu edhahooyo waxay is leedahay gabadhan yare jaamacadda ku soo gaajootay iyadoo naaxsana kaa laabato hedhaygraanee walaal xasrad lagaama waayo maxaa kaa galay hooyada hadday naaxiso ma sidaadan anigu dharku saanu iga fulxumaan isu ilaaliyaa edha walaalay aniga nafteeda waa ilaashanahaya baruurtaaguma haayo waxaasoo dhan waxaa igaga daran oo aan ka murar dilaacsanahay meesha aabaheen ku noolaa iyo innagu meesha aan degannahay iyo waxaan cunayno markaana maxaa iska qusaya halkaynu degannahay aabbaha hooyo aabba xaaladda aan ku soo arkay mid loo dulqaadan kara ma aha edha saafiyey horan arrinkaa kaala hadlay walaalay maadinaga daysid walaale maxaan kaa daayaa ma aabe adigii hooyaba ina hagrateen hedha ma nolosha ku jiraa ku eegi lahayde war cusub ma taasaa saaka la timaadeen in nolosha waabihin ku jira aniga igu eedaysaan miyaa hooyoy nolosha aabbahay ku jira haddii aad aragto waad qaracmi lahayd wax la eegan karana ma aha oo hadduu ku nool yahay maanaa ku noolaysiyood igu eedaynaysaa hooyo kuma eedaynahayo laakiin inaad ku eegtaan xaq maaha hooyo naabuuqay naga daa walaale saafiyey arrinku si aad moodaysa maaha hooyanaha ka xanaajin wagaray wagar masaakaa taas la timaadeen hooyoy waxaan doonahayaa qolkii anigaad iigu tala gashay inaan aabbe soo dejiyo haa ma anigaad rabtaan inaanaan wada joogin inaad guriga ii soo dejisaan allah ilaha waa idiin gaadhay edhahooyey aniga maaha waxaa ku hadlaysaa waa saafi keliya edha anigu waxaan ku talin lahaa aabbaheen halkiisa inuu ku nabad qabo saafi adiguna hooyo sow suxuuntay nagama guro haa hooyo sow shaqadii tegi maysid haa hooyo diyaar baanahay wakhtiguna wuu hayaa hore u dhaqsanaa alaabtan maydhaye oo hodan miyaanay sooba toosin allah kii kula dhashay baan soo toosina maxaad iyada ka sheegaysa hooyo ma og tahay inankaagii faysal sheekadu keeneen meeshaba oolin ma lacagisii buu ku yidhi lacagisii hadduu odhan laha in yar baaban iska siin lahaa haddaa hooyo sheekadaa aan loo fadhiyin maxay tahay wuxuu yidhi waxaan rabaa waxbarasho dabadeed halkuu tegayaa shahaadada labaad ee jaamacadda ayaan rabaa buu yidhi oon dibadda u tago oo hooyo soo innagii ilaa jaamacad ka soo saarnay maxay tahay aqoonta kale hadduu isagu intaa shaqo raadsado oo asagu reerkiisa ku fillaado shahaadadu sheegayna uu raadsan karaa inankaa faysali siduu u guursadayba anigu ma fahmaaye awal wax walbuu ii sheegi jiray iminka miyuu kaa maarmay maya igamuu maarmin hooyo wakhtiba miyuu ii helaya isagu hadda wuxuu ina leeyahay jaamacadihii waa laga soo wada baxay shahaadadii koowaad ee lasoo qaatay shaqo waan ku la'ahay hooyo sow kuwa saagiisiba ay shaqada helaan dadaal baa la ysku dhaafay aqoontaan sii badinaya iyo shahaado labaad markaan soo qaato shaqo waan helayaa buu iminka inaga dhaadhicinaya warkiisa ka baxinankan horta miyaaban lacag u hayaa waxbarasho dabadeed ku tago waan ogahayo uma heli karaysidba guurkoodii buu dhaqaalo badan igaga baxa hooyo imaqal baan ku idhi intaad cuntada nooga dhigta mooyaane wixii kale ee ku soo gala kaydso anigaa iminka shaqeeyee xaq baad iigu leedihiin inaan wax idin taro laakiin hooyo waa inay kuu kala xadaysnaadaan waxaad ku daboolaysa baahideenna shakhsi ahaaneed iyo waxaad xaq u leedahay inaad kaydsato si aad mustaqbalka ugu noqotid ganacsigaa tiri kama maarmi karo waa runtaa hooyo laakiin faysal sidee baad arrinkaa ugu qancin kartaa kow laba saddex afar shan lix toddoba maryanay lacagtii may diyaarisay waan habsaamay waa anigan gacanta kuugu haya gaadhigii halkuu kugu soo maraya imikuu soo maraya ayaa carruurtii iskuulkii ma u dirtay mar hore ayaan u diraye horay ula soo dhaqso khudaarta berri waxaan iibiye garan maaye waayahay qadarkuna waa halkiisa ku darso ilan gaadhigaaba nala jabi karee waana cabdiyo waa maxay waxaanaad bilowday ma inaad beeraha ku dhexdo ayaad soo wadataa malaha mid kalead ku aragtaybe mina subaxdaas haynugu bilaabina isdeji dee marmarsiya ayaad sii samaysanaysaa waan kala aqaanaa markaad wax wadid iyo marka kale naa waxaad ka warramaysa garan maayee lacagta keen waan habsaamay hoo bal soco waa yahay hiraabta iriidu kulula marina adeega indhiibba saakaalkeed ku degdegaysaa madiinoy iriidu madakoo kadhiyaaso ku roorahaaya iindhaqsoyba bal hadhka soo gal oo biyana cab madiinoy assalaamu calaykum walaala maryanay bal ii warran wacalaykum assalaam alla waa inantii maalintii dhowataan sariirta ka iibsaday sow magacaagii muu ahayn hodan oo miyad magacaygiiba ilowday maya maan ilaabinaye gabadhii kale yaasmiin ayaan magaceedii kugu qaldi gaadhay haa laakiin maan moodayn inaynu sidan jaar u nahay oo ma aad baynu isugu dhownahay haa sakad keliya inoo dhaxaysa
haddaa maxaan horay kuugu arki waayey hodanay waa run aniga laftigayguba hore kuumaan arag suuquun baan ka soo adeegi jiray waddadaa dambena waan mari jiray horta muddo ayaan meeshan ka shaqayn jiray ee malaha adigaa sakadaha dambe mari jiray anshaag banteed muddo dhataaseedan fadheeda jarna marinay haa waa runteedoo mar baan shaqada joojiyey markaasumaan meesha ka maqnaa haye bal adeeg maxaad haysaa ariire way koo horeeyay reedan surun baada naa xaggeed naga salaantay adiguna maaba ma ka salaangna reedan surun layba ka eri malaha dambiraadis baa tahaye meeshaada iska joog anu gabadha man adeeg ka dalbaday hodanay gabadhu way kaa soo horraysayey raalli noqo habar yar horrani waxaa garamaaye meesha miyaan kaaga taga mise waxbaad iga iibini bismillaahi eedo isdajiiba gabaryara ee taha ma marwo dhan baad leedahay ina yar baa tahay un owlaado leenaad owlaado letaa naayaadhan bal kaftanka halkaa inoogu joojiyo maxaan idinka iibiyaa hodaney iga baktii heesta ibtilaad ku qabtaay yaasmiinay malaha waad ka weynaatay heesaha alla waa ikraan soo dhowaada walaal hodaney si fiican hablaa ugu shaqee intaan qoladan u dhammaynayo mahadsanid walaalle waa dhownahay shiifafkuma inta halkan taalla keliyaba haa walaala soo dhowaada waa inta halkan taallow haddaanayna daqancinna qaar kalean ii dalbaya sawirradana wayna tusaya walaalle way qurux badan yihiin kuwaniba saafi walaal aabaheen haddaan gurigiisa u qurxinno oo halkiisa ku nabad helo soo ma wanaagsana maxaa ku jaban aabba hadduu inala soo dego ma aabbaa soo aabaheen maaha haa ma diidan inuu aabaheen yahay walaalle waadse og tahay inaanay hooyo wada joogin ayaduna aanay raallisan ka ahayn horta maxaad carruurta iskaga dhigtaa walaale saafiye walaalay carruur iskama dhigee waxay dhibahaya waa dayaca aabaheen ikraane si fiican ma laydinku shaqeeyey hodaney xagga dambe gee hablaha alaabtii sariraha kala ha eegaan annagaa walaalay dood kala gallaye naga raalli ahaada walaalayaasma si fiican baa nooloo soo dhoweey waa mahadsantihiin jiifkan aad ayuu iila qurux badan yahay ikraan haddaan aabba u qaadna iyaga warrankan malaha kani waa yar yahay kana oo weyn ma heli kadhaa haa walaala way yaallaan isagoo nafara iyo isagoo nafar iyo barhiba balna tus walaalle adigoo raalliya edho magacaagana kumaanaan weydiin aniga magacaygu walaalle waa ikraan walaashayna waa saafi anigana hodan baa la yidhaahdaa barasho wanaagsan ma dalka dibaddiisa ka timaadeen haa laakiin halkanna waa degannahay maasha alla dharkaad xidhantihiin aad bay qurux badan yihiin aad baan uga helay sarrintiina waa tane sariirtan aanu iibinahaynaa aabbo ikraan say kula tahay waa sax edho waabay shidanta waa bahal quruxsane aan bixinna lacagta iga raalli ahaada dharkiina aad baan uga helay ma dibaddaad kala timaadeen halow may maqashaa cabdiyow haa waan ku maqlaaye mar yaray may maqashaa haa waan ku maqlaaye miyaanad soo socon maxaa kugu dhacay dhexdaan ku soo jiraaye gaadhigiiba mise meelo kalaad qabatay maya meelo kale maan qabanina gaadhigiibaa dhiidhi nala galay xilligaad iman jirtay waad ka dib dhacdaye gaadhigiibaa dhiidhi nala galay oo weli waanu ku jirnaa waan ku idhiye miyaanad imaqlayn dhiidhiga maxaa idin geliyey ma roob baa da'ay haa roob baa dhowaan da'ay oo weli waanu ka shaqaynaynaa oo intay in leeg baad ku jiri kartaan meesha waan ka shaqaynaynaa weli dee waa gabaldhiciye bilay habeen idinku noqotaa intee waa laga gaadhsiinaya haddii aan la yidhaa dee khudaartuna way xumaanaysaa ee la soco waan ogahay haddii aan gaadhi kala helo waan iskaga soo baxaya maye kan raje intayn leeg baad ka qabtaa inuu ka baxo inaan habsaamo mooye caawa kollay ma dhaxayo haddaad gaadhi kale heli weydo maxaad samayn doontaa sida waa ku sidee shaaha waa daldalaysaa lama bakeeri oo shaale ma cabinoo saxabo waryaah laba kooba shaahay ma badna miya shaaha lama bakeeri aa laga cabaa aniga beriga dhan lamadaan lay cabbi anigu waan yaryaraystaa oo midda mar baan cabbaa laakiin maalintii haddii aanan 5 kooba shaaha cabbin iima ahaanayso yaa lamadeeda koob maa wax ka sheegay hee adigaaba tarmuus noqdaye war haacaayan anigu darmuus ma yihiin tarmuuska 5 bakeeris qaada ad calooshaa 5 bakeer qaadi tarmuus ma noqono adna calooshaa waxaas ka hadho baryahan kumaan arag ballantiina waad igaga baxday saaxiibo ma ka bixine anaa sheeko ku haya adiga see wax u xalisay horta maadaama keligay beerihii tegey waxa ay qabsaday baan kuu sheegaya maxaa ku qabsahay cabdiyaa tahay waa ka boode waa ogahe saaxiib sidii oo gaadhigii aan khudradda soo saaray sow ilamuu fadhiisan maxaa ka wadaane
dhiidhi ayuu nala galay soo dhulku muu roobanayn waa kaasi hadda waaba joogtaaye see ku imaatay gaadhi kale oo socduu baan ku soo rogay khudaartii waanigaa hadda ka soo faraxashay ee halkan kugu yimay shaaha kula cabayadii si fiican aa yeeshi saaxiibo aniga warkay hadda dhegaysanay balwad horta shaqa aan ka saayo aan heli saaxiibo tii wastaadka ahayd adiga faryaamale iska dheh farsamada gacanta haye ka soco ilaahay muxuu darnaadee gabar yaasimiin la dhaho oo carwo alaabta guryaha gadda joogto shaqa may siininoo saaxiibo dukaankay leedahay carwada waxaa iska leh maano qoftoo la dhaho fariid haye ka soco xaalkayga saas waaye ma iga qasna kistoo shaah dadka loo shaqeeyo aa laga qaadaa kistoo kalena maanaa bixisaabo markaas sidaas mayn ku kala tagnay labadeennu intaan ku kala tegaynaa khudaarta aad keentid anigaa macmiil kugu noqonayo be horta xaaskaagu ma ka aqbashay inay iibiso khudradda aan keeno waxay dhahaysi khudaarta haddii qof naga gata la waayo waa halaabay aniga alaabtan yar oo iska haystaan iska barkaysayay dhahaysi haddaa maxaad macmiil igu noqonaysaa haddaana xaaskaagu khudradda iga iibsanayn ka waranbo maalinta jimcaha haddiin kula safro oon dalaal ka noqdo maqaaxyaasha aan ka saayo haddiin kulu gegeey ka waran maalintaa ma shaqada wastaadnimadaad ka hadhaysaa mise hawlba melihid